xilli dadyowa ku dhaqan gobolka Gada ay soo mareen jilaal aad u daba dheer ayaa haddana waxaa Ilaahay mahadiya in roobabka xilliga guga ay bilowdeen deegaanada gobolka Gada oo dhan waxaa ka daay roobabka xilliga guga sida muuqaalkan aad ka dheehan kartaan waa dhulka oo aad u qurux badan isla markaana in loo daawasho taga ku fiican deegaanada roobabka lixaad kale ay ka deen waxaa ka mid ah dhulka loo yaqaan Diir Hare wartayaaqla dhadhaable alwila dhamaantood waxaa galay biyo xoog leh dadka deegaanka qaarkood oo la xiriirnay ayaa waxa ay inoo sheegeen in roobabka halka ka daayay yihiin mid dadkii iyo dunyadaba ay ku diirsadeen deegaanka maanta aan ku sugannahay Ilaahay baa mahad iskale bishii hadda noo dambeysay waxaa ka dhacay kuleyl aad u fara badan bishii Maarso wixii ka dhacay kuley waadna ogeydeen haddana maanta Ilaahay baa ku mahadsan waad aragtaa nimcadan iyo barwaaqadan iyo sida ay tahay waadna ogsoontihiin wixii ka jiray bishii hore marka Ilaahay ayaan ku mahadinaynaa roobka ka dhacay wadanka haddana barwaaqadan ayaan haysanaa waa gartay marka hadda meelaha ugu roob badan xagee ka mid waxaa ka mid ah sida yaaqlo kale sida dhadhaable kale biyaha ku jira waad aragtay ilaa iyo maxaan ku iraahdaa Diir Haradan kor oo dhan waa wada sidoo kale daawayada roob culus baa ka dhacay waad aragtay aryaala ku dhamaaday ilaa faafafko dhan hadda biyaha jiifo baabuur baa 7 bari 8 bari ku jiro Ilaahay ayaa ku mahadsan walaal ma islaahay hadda xoolaha caana badan bay keeni maadaama roob uu daay waxaan leenahay Ilaahay baa ku mahadsan xoolaha wax dhalay iyo waxaan dhalinba waa leeyihiin neefkan dhalin inuu cayilaha rajaynaynaa kii aan dhalayna caana in laga helaan rajaynaynaa si kastaba ha ahaatee marka waxaad ka garan kartaan ama tuulooyinka iyo meelaha caanooyinka la keenaad ka garan kartaan baan u malaynayaa sida ay tahay iyo sida caanaha loo gadanayo waa gartay dadka qurba joogta maadaama roob uu daay maxaa ugu baaqi lahayd inay wadanka ku soo laabtaan Ilaahay baa ku mahadsan ninka hada ama abaar ka tagay ama kuleyl ka tagay maanta waxaan u sheegaynaa wadankii barwaaqa ka dhacday dhulkiisa hooyo inuu balaxaata eegmo oo imaadaan u sheegaynaa